iyada oo dhawaan ku dhawaaqay maayarka magaalada Borama olole ballaaran oo nadaafadeed oo laga fulin doono magaalada Borama. Waxaa saaka halkan waa seeraha magaalada Borama lagu qaaday olole nadaafadeed oo aad u ballaaran, waxaana ka soo qaybgalay dadweyne aad u tiro badan oo ku dhaqan magaalada Borama. sidoo kale waxaa goobjoog ahaa badiba shirkadaha ka shaqeeya nadaafadda ee magaalada Borama iyo weliba shirkadaha gaarka loo leeyahayba. si la mid ah waxaa goobjoog ahaa saaka ololahan nadaafadeed maayarka magaalada Borama Maxamed Axmed Warsame iyo weliba xildhibaanada cusub ee golaha deegaanka ee degmada Borama. ugu horeyn maayarka magaalada Borama Maxamed Axmed Warsame oo ka warbixiyay ololahan nadaafadeed ee saaka lagu qaaday seeraha magaalada Borama ayaa waxa uu yiri mahadnaqaynaa dhammaan cid kasta oo ka qayb qaadatay maanta aynu u astaynay maalintii aynu ugu talagalnay inaynu nadiifinno labadii beerood ee danta guud ahaa labada beerood ahaa meelo dalxiis iminkana uu qabsaday qashinku. waxaan u mahadnaqaynaa shirkadaha dhammaan ganacsatada shirkadaha kala duwan ee ka qayb qaatay noqotaan nadiifinta qashinkaasi. dhammaan shirkadaha ka shaqeeya adeegga nadaafaddu waxay diyaar u yihiin ama aan ku amraynaa inay ka guraan dhammaan xaafadaha qashinka. bulshadana waxa looga baahan yahay inayna qashinka guryaha ku haysanin ama aanay daadka soo raacin ay dhammaan shirkadaha saaraan. taasi waxay keenaysaa in markaa shirkadii la xisaabtami karo hadday iyagu qaadi waayaan, laakiinse dhaliishu imika bulshaduna qayb bay ka tahay, waayo shirkadu halkan kumay soo rogin. iyagu waxa loo baahan yahay inay ka qaadaan guryaha. qof kastaana isaga mas'uul ka ah qashinka uu gurigiisa ka soo saaro, markaa isagu waa inuu saaraa gaadhiga. shirkadahana waxaanu kula xisaabtamay inay geeyaan goobihii loogu talagalay, waayo dhulkan waxa weeyaan dhulkii seeraha Borama. maantana waad arkaysaan bacda iyo caagadda iyo qashinka ka muuqda. waxaan doonaynaa inaynu soo celinno seerihii haddii ilaahay dhaa waxa sida uu noo xaqiijiyey isuduwaha deegaanku waxay wasaaradda deegaanku u diyaarisay siligii lagu xidhi lahaa. taasina waxay noqonaysaa in shirkadaha ganacsatada ka shaqaysata magaalada Boramana ay ku sameeyaan kuraastii lagu fadhiisan lahaa, in harkii lagu sameeyo. taasi waxay keenaysaa inay noqoto meel dalxiis. waxaan doonaynaa inaynu u diyaar garowno sidii magaaladeennaasi ay nadaafad u noqon lahayd, magaalo akhtara aynu uga dhigi lahayn. seeruhuna wuxuu caan ku yahay meel loo soo dalxiis tago. insha Allah dawladda hoose waxay samayn doontaa kaambayno qashinka lagu ururinayo oo lagu nadiifinayo magaalada. bulshada dhammaanteed afarta xaafadood iyo cid kasta oo qayb ka qaadatayba waanu mahadnaqaynaa mar labaad iyo mar saddexaad. sidoo kale waxaa halkaasi ka hadlay dadweynaha kala duwanaa ee ka qayb qaadanaya ololahan nadaafadeed ee saaka lagu qaaday seeraha magaalada Borama iyo weliba shirkadihii kala duwanaa iyaguna dhankooda ka qayb qaadanayay ololahan nadaafadeed. waxayna yiraahdeen inaanu ma aragtay sida uu maayirku sheegay aan diyaar u noqonno. maayirkii ugu horeeyay afarta degmo iskugu yeedha guddideeda ee ma aragtay 13 aan dooranay la fadhiista waa kii horeeyay. alxamdulillaah waxa weeyaan walaalayaal nin walba mas'uul baa saaran. shimbirtu labada garab bay ku boodaa. haddii aanu la shaqayn weyno dee waxba qaban maayaan. innagaa la inaga rabaa hi iyo hooba inaan isgarab taagno. maanta waxaan joognaa seerihii galbeedka bidixdii magaalada. maayir ka horreeyey ayaa dhirtaa bilaabay, waa loo aayaa. maantana isagu qashinku ka hoos gurayaa, uu inala joogaa. hal saac iyo badh baan maayirka raadinayoon dadkii ka garan waaye. waa kii koobaad. run maynan ahayn. runtaan isku sheegnay dhaha igu soo eegini. waa ninkii koobaad. maayiradii hore baabuurtiiya laga ag maayi jirin, askaraag socota. wallaahi hal saac baan raadinayey. gabadh baa ii tilmaantoo tidhi war waa maayirka waa ka koofiyadda wata. malaha waan gabaway dhihina waa yar dareeyey. waa ninan dhallinyaro ah odun baan eegeegayey. war waxa weeyaan han la shaqayno. annagu beriiskaa hoosaan joognay, bal halkana lanoogu sheegay waannu nimid. markaa waxa weeyaan bilixda magaalada innaga u hayna, bulshadaa u haysa, aqoon-yahankaa u haya, dhallinyaraada u haysa, dumarkaa u haya. maayirka waxaan u sheegayaa afarta degmo maalinba inaan meel la tago. bulshada ayaan u shaqaynaynaa, dan guud ayaan ka shaqaynaynaa. iyagana allaha barakeeyo. السلام عليكم. maanta waxaan u soo baxnay saaka min subax saacada waxaan u taaganahay inaanu baaqi maayirka jiibnay oo nadaafadii gobolka u soo baxnay. haddaan tiimkii Borama $1 aanu nahay waxaanu maanta ka qayb qaadanay xoogayga ugu deeqnay degmada Borama oo nadaafadeedii oo leedahay ugu jirno. dhalinyarada gobolka waxaan ugu baaqaynaa inay yimaadaan oo soo ajiibaan baaqan iyo baaqaqyada ku xiga ee soo baxaya, inay maayirka ajiibaan oo u soo baxaan danta guud ee gobolka. waxaanu leenahay magaaladeena cid inooga ma horeyso, inagu baa qurxisan karna, inaga hagaajisan karna. ka qayb galnay oo soo ajiibnay baaqi maayirka ee ahayd magaalada in la nadiifiyo. waxaan leenahay waan nadiifinaynaa wax kasta oo horumarka Borama
laga qabanayo diyaar baan u nahay cid kasta oo horumarka boorama ka shaqeynaysa diyaar baan u nahay maayirka degmada booramana waxaan leenahay tallaabo hore u socdaad qaaday waan ku garab taagannahay Shakuur Maxmed Ali 5TV Borama